واتهاي داوديال كلنتي وناكسن مقعيقو عبد الرشيد كورة halkani waa telefishinka caalamiga Soomaaliya Cable Studios wadanka Switzerland waxaanu safar u nahay magaalada Basel ee isla caasimadda gobolka Basel ee dalkan Switzerland si aan ula kulanno jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaalada Basel iyo sidoo kale ururka la yiraahdo Daryeel gudoomiyihiisa Xasan Ismaaciil Aadan daawadayaal daqiiqada kadib waxaanu gaari doonaa magaalada Basel ee wadanka Switzerland si telefishinka caalamiga Soomaaliya Cable oo halkaasi uga soo qabto program kooban Basel Swiss Federation Federal Swiss wuxuu ka mid yahay 550 kun iyo 500 markay ahayd ayuu ku biiray Swiss intii kooraysa 100 sano wuxuu ka mid ahaa dalka Jarmalka waxay Basel bariyada marka television waxay ku dhahayeen Basel korbay u koraysaa marka waxa ku soo badanaya xataa guryaha dheer ay Basel bari hore lahayn jireen horta 23 sano aan joogo magaalada wax weyn baa iska bedelay حتى سيستم في عني هذا ما أنت هيستان صدق هذا السنة كور ميسن وحن قرنا مجال مركا إيماني حتى هذا كسوق هذا ما كارنا إن هذا كنا وعنا ميل بنتيجي جرني لين بقول جرني كابينة ولا هسيدي مركا نسعاش اللي بدأ أرسل نشوفه كو أركي جري أيام الوجود هيا كنت تكتين ودم كده وعيسى هذا هي صوماليا وعيا هذا واحد مقلة جامبي قال لنا كابين أفر صومالي جنب كابين سيديد إن مدير بنقدر الله سوته هذا مد أن سياسة الصومالية وكلا أن سوق لها سيدي هدوك الصومالي سكوا هيستان المرة قاعدة الصومال حاليا بإني هيستان لكن يسفهم الله يهين هذا مقالنا وجدي بازل ذهب باز شير يمد وين وحكوا تقالمين إني اتنين بنكون وحيربان يكون هلان وحي ليهين حفلة أو آد وسجرين هذا قناة ولا هذا فوق الكريف مركا باز الشنكالة مين حناقين وحي سمين وحي قرن حيوان عرب أي أسمين بدنك ما حدا ما دام إذا كساس أجعيشين وإن سميننا وقت تسبرك الجيران باش شكل لنا حيوان كده عصورتها اللي وحرته وإن سميننا ساسو أي تهينا وعشرتي وود ديبان مقالد وود جعليهن هدنا حركوف هو ساكن حيس مركز ضدك الصومالي حتى مهم وهان لهاد إني دريمان برضو محا مهمة من نمضى مهمة وذا جركة مهمة نمضى وذا مهمة وحيرا سكوا يستوى لنا وما ما سمعت إيسا يرجع قعميس هوسبا الله دقا مركز كان هوسبا يقول دقا ومركز لو جرمال كان لقوا حكومي لكن كوني شنبولي كودا يسويس كوبية boqol iyo 15 sanadood ayay federaalka dalkan Switzerland ka mid tahay ay macnaheedu marka 515 sanadood ayay ka mid tahay dalka Switzerland waa tahay sidoo kale buundadani ayaan ku soo laabanaynaa oo runtii xiiso gooniye inoo leh ka Soomaaliya Cable ahaan 2016 kan hadda aan sanadkan aan ku jirno insha Allah taala dhamaadkiisana waxaan rajaynaynaa in degmada Dhabbad oo gobolada dhexe ah in aan ka sameeyno isbitaalka hooyada iyo dhallaanka arrintaasi waa su'aal muhiim ah runtii horta ma jirto wax dhaqaalo weyn oo anaga aan leenahay ma nihiin niman oo mataqana mushtara ah oo meesha kabaniya iyo shirkado ay meesha uga shaqeeyaan ma nihiin laakiin waxyaabaha ugu weyn oo aan ku tirsanahay waxa weeye ururka Daryeel wuxuu qabtaa shirar buu qabtaa shirarkaas la isugu imaanayo ayaan ku aruurinaa oo aan yani gurmad u sameynaa
waxaaba naga go'anba in annaga ilaa iyo awoodeenna karaankeenna intaan ummadda Soomaaliyeed ee jilcsan aan u ordi karno inaan u orodno. Cabdijabaar Yuusuf Sheekh Xasan afayeenka ururka samafalka ah ee Daryeel ayuu ahay kaasi oo aan ku wada sugannahay buundada kala qaybisa labada Basel ee waddanka Switzerland. Basel waa caasimadda gobolka Basel ee waddanka Switzerland waa magaalo aad u yar markaana aan aad u weynayn. buundada aanu taagannahay waa buundada kala qaybisa labada Basel waxa ay dhisan tahay sida ay ii sheegaan khubaro muddo 22 sano halkan deganayd in ka badan 10 sanadood. magaaladani Basel oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan dalka Switzerland waxa ay leedahay oo ay caan ku tahay shirkado kala duwan sidoo kale waxa ay caan ku tahay Basel World oo iyadu ah carwada ugu caansan dalka Switzerland iyo sidoo kale shirkadda daawada waxa sidoo kale dhaxmara wabigani macluumaadka xiga ee Basel iyo booqashadii Somali Cable TV dib ayaanu u dhigan doonaa qaybaha kala duwan ee magaalada ayaanu aadi doonaa.